waxa weeye kaafiye sawirkeeda ninkii doodka qabi ninkii kalaba kaafiye Nuur Maxamed weeye ayeedeed baana ilmaha dhintayna la dhalatay halkan waa deegaanka xareeyay duleedka degmada Dolow ee gobolka Gadow waxa ku nool dad ka soo barakacay abaaraha ka jira Soomaaliya inteeda kale waxa jira sawir lagu qaaday halkan iga dambaysa oo laga qaaday gabar yar oo kaafiye Nuur la yiraahdo sawirka ayaa baraha bulshada qabsaday waxa la sheegay inuu ahayn halkan laakiin daljir waxay halkan u timid si ay sawirka u xaqiijiso goobta lagu qaaday inuu yahay halkan email kale oo kuwana qaar kamid ah qoyska kaafiye oo ka hadlay arintaas dhacdada aad maqasheen oo nagala qaaday waraysi oo meesha aan ku kulannayna waa kaxari meel dhaan annagii waftiga ku kulannay meesha soo geerida Ilaahay baa waa faral waa waxaan sugayna waa wax aan maxay eeday aan suganeynay geerida Ilaahay baa wata meeshaas bay geerida nagu gashay waftiga ayaana nala kulmo oo waraysi nala yeeshay meesha aan joogna ninkii beenin lahaa ninkii kale waa kaxari waa soo Dolow marka deegadana waad garanaysaa abaara baa ka jira 4 sano ah ninkii rumayn lahaa ninkii beentayn lahaa abaara waxa ka jira adduun weynaha iyo ummadaba u daran ubadkii iyo adduunyadina la tagay ubadkina sigaya marka adduunyo wayba tagtay ninkii ishkin la midha ishkinku wuu la carar wixii ari leeyahay arina wuu dhaafay ubadkii baa maartay hadda yaa ka difaacideedii meeshii magaalo u dhow meeshii wabiyada aad sheegaysaan u dhow yaa ku cararkeedu ummadda hadda ay u badanta hadda wabina dad ma wada deeq dadka dadna wabilay buu dadna gabiibta dagi jira gabiibtigeeda waa laga yimid abaara baan baa ka dhacay abaara baan oo suuqna lahayn gargaarna lahayn baa ka dhacay idinkaba waad garan kartaan sawirka waa ka xareey meesha laga qaaday waftigii qoxootiyada u socday oo UN head baan waraysigaas la yeelana oo nala kulanta Ilaahay baana nala kulmiye annaga umaana yeeranin waftigii oo kormeeriye annagoo dhacdadii ay nagu dhacday baan wada kulannay waraysiga halkaas baa lagu galay ninkii beentayn lahaa ninkii kalaba waa ka xareey waa gobolka Dolow waa kaafiye Nuur Maxamed meesha laga sawiray waa ka xareey ninkii beenin lahaa ninkii kalaba beenna ma ahan halkaas way meesha Ilaahay nagu kulmiyay annagii waftiga marka ninkii wax noo qaban lahaa ninkii waxna taaran lahaa meesha wax ka dhaceen waa ka xareey iyo Dolow ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna 4 gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraaca geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta wow macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank